isku dhacoodo inuuna keenin kuwaasaan isku dhacnaye horumarkii wadankan dib u dhigaaya wadankiian waxyeelaynaya maxaa yeelay wadanku wuu ka cimri dheer yahay dadka cimrigoodu uu gaaban yahay laakiin wadanku cimrigiisu ma gaabno ajaasho socota ka faa'iideysanaysa waxaan soo qaadanay bilaal maka waa toogtiina waa lagu ciqaabay waa la dhibay dhagxaana korka laga saari jiray haddana saas ay tahay markuu madiina tagay ma dhahaynin meeshii la igu ciqaabay inkaaray qabtay ilaaha iga soo wadee dhagxaantay korka iga saari jireen ama ka raystay ma dhahaynin gabayuu alifaaya markaas wuxuu leeyahay alla yaa maalin igeeya meeshii maka ahayd oo deegaankeedu buurihii iyo biyihii iyo cawskii iyo waxyaabihii ka bixi jiraan arkay alla yaa meeshaas igeeya markaas nabigu intuu ilmeeyay wuxuu ku leeyahay ninkan asalka oo wadaniga asalka oo wadankiisa u jecelaw dacil quluba taqir qulubta noo degtay han soo xusuusin xusuusana gelinin marka wadanka in la jeclaado waa saas nabigu markuu leeyahay magaaladan hadayna qoomkaaga iga bixin kaama aan bixin waa jacayl wadankiisa uu qabo islaamku wuxuu yaani waajib inooga dhigay hal taako oo muslimiin ay leeyihiin hadii lagu xadgudbo oo la qabsado muslimiinta oo dhan waxa waajib ku ah inay dagaalamaan si taakadaas ay u soo celiyaan haddana inaga wadankeena horta ma iska waraysanaa maxaa la haystaa maxaan la haysanin maxaa la rabaa in la qaato xagee loo socdaa xagee laga wax inaga galayba yaa lagu ogyahay marka waxa lagu ogyahay kooxda marka xukunka haysi idinka wadanka mas'uulka ah wadanka ilaaliya waa ilaalinayna xataa noo kaalmeeyo ma laga yeelay wali waa lagu sii waxa la dil rabo qodaxa lagu sii jabinaa oo maxaa qodax loogu jabinaa waxa loogu jabinaa waxa la rabaa ma u jeedaa way fashilaana thumma min waraa'i fashalihim fashilkooda kadib aqoon wuxuu rabaa ana libaax asaga hadii loo dhiibo waa la hubaa inuu fashilay waana la arkayba kuwa waxa la arkay hore hawsha u soo haayay maanta la kari laayay oo markaad shalay joogteen dadka maxaa janno ugu ridi weyseen wadankan oo dhan uu hagaagi waayay oo saa u noqon waayay ma markaas way naga xumaatay hadda hadina loogu soo celiyo janno leen dalaq insiinayna maxaa cadeynaa in janno la galay meeshan waxa la rabaa marka la iskama maarmo intii la iska daayo maxay ahayd isfashilinta an hore loo socdo waxa reer galbeedku waxyaabaha ay naga rooyin waxa kamid ah waxa la yiraahdaa dadkan reer galbeedka ah aqli ahaan laga ma aqli badno laakiin waxay sameeyaan qofkooda faashilka ah ee waxba ogeyn ayay gacan qabtaan ilaa uu ka najaxo saas daraaddeed lacag ay u qorayaan qofkan shaqaysaneen Soomaalida xataa meelaha taatawartan cayra loo qoray leh waa faashil moogtahay waxa ma haysto waxba loo qorayaa lacag la siinayaa بعدين كان فاشل كا أي جعان قبنايان حتى ينجح إلى وكن نجحه أما إنك وحن سمينا إننا قف كناجح أيام بالش كرفينا حتى يفشل شو فشله خير وحالي ميل توله ضد ولا إن ضل أي دقيقين يا مد إن نقرأ أو ماضي مركز مركز السعودية مركو أركي جودك يكسر عيان اسمها ينكر وقيلنا ورقتك كلح ورقتك كلح كي وسكون حياة برجع هون أنتوا إسكاجر ولا إسكاك عجرة وإسكاك سعون جرة واحد قد كله حد يجري مو نجري وين بسدان مركز قد كله حشد يصير بسدان وحين هني كانوا قصوا بيري نقول نوع هين عن إسكون نوع كده جن مالنا مال مركز مرتقال دوقة بيساس وإن ولا ياشي إنك عندها قبيل ولا كشيء كيسنا هم بيحل مرتب أنت سيان يلا بدين لو تكبحيان أنا وذا فريسنا مركز واكاس قلت كان كل عنه عن سيس عنه كاس مركز عقله ومكيناي عقله وحكينايا وحي في عن هراء الصعودة إن هراء الله سوى حكمتك لو حاجة تايسة إصلاح الموجود وحي عاد هيسته ده جاجزته خير من انتظار المعدوم وحكفي عني هاي وحدا هيسرين تسكت وحد هذا واحد هيسته إن أتكبته أو توسيسته يا وحكفي عني هاي وح معدوم أو ذا هيسرين تسكت أو ده هذا واحد ما جاجينه وأنسكسو جينا وحنا كي بابان كبعدي wax fiican oo imaanayaan waxa fiican ma imaanayo ilaa waxan xun laga tootoosiyo waxan tootoosintiisana hal qof iyo laba qof iyo saddex qof kuma filo umadeena Soomaalidu waa dad yar wadankeenu uu weyn yahay kulligeen oo wada jirin hadaan soo wada imaano oo aan hagaajisan aan dhahno ayaa waxaan u sii baahanahay khibrado kale iyo ummado kale oo waxna la qabta maxaa u malay marka inagii oo hadana sii kala daadsan oo wadankeena meel loo kala socdo lahayn marka qodaxdii iyo waqti ma isku sii dheeraynayna kala qoqobnaantan ummaddu ay kala qoqoban tahay iyo jidadkan iyo meel walba la kala xiranaayo iyo ummadii rajadii ay lahaan lahayd oo dadka rajabeel ugu ridaayo oo xagee loo socdaa iyo xagee laga socdaa aan la garanaynin inagu ma waqti isku sii dheeraynayna marka aqliga intuu soo dego waxa la rabaa in la yiraahdo sidaan inama bixinaysee bal intaan waxoogaa iska yara bedelno
aan si kaadsiinyo ay ku jirto oo xigmad ay ku jirto qofna yaan la fashilinin qofna yaan la fogeynin war qofkii khayr haayow waa lagu baahan yahay khayrkaaga keen kii wanaag hayow keen wadankan aan wada dhisano halkaas aan ka socono laakiin waxaan u fahmnay inaga mushkiladeena ah hebel aan baabi'iyo si aan u soo baxo marka ha baabi'inina hal isla wada guuleysto inaad adigu kaliya guuleysato waxa ka fiican walaalka iyo adiga oo wada jiraan inaad wada guuleysataan marka si kulli aan wada guuleysano aan isla qaadno nabiga sallallahu alayhi wasallam xigmadiisna waxa kamid aha markii la isku qabto xajir isku tiyaa meesha saaraya mara intuu uu gugulay wuxuu yiri dhagaxana meesha saara dhinacyadana ka qabta marka dhinacyada laga wada qabtay dhagaxii meesha la saaray ummadeena Soomaaliyeed waxay u baahan tahay marka mara intii loo fidiyo qof walba inuu dhinaciisa ka qabto marka aan isla qaadno wadanku markuu inoo kaco barwaaqo gaarno oo nabad aan helno ka bacdi waxaan leenahay kooxda xukunka marka haysa way gaabinayaan meeshii boqolkiiba aan karnay 80 inay hawshaas qabtaan boqolkiiba 60 ayay wadaan marka wadanka ay dib dhac ku yihiin qolada kale ee soo socota ayaa boqolkiiba ama 80 ama 60 gaarsiinaysa amal in lagu tartamo laakiin hadii si loo oonta iska dab wareego oo leeyahay aad maxaad kaga duwan tahay kaas maxaad kaga duwan tahay aad maxaad kaga duwan tahay waxa uu kaga duwan yahay aan ahayn kana in cali la dhaho kana in geedi la dhaho ma jirto marka asmaadu wax ma taraysee quluubta isbedeshay ayaa wax bedesha in allah la yughayyiru ma biqawmin حتى يغيروا ما بأنفسهم marka nafteena wixii ku jira wixii hore oo dhibaatadan inagu riday intaan ka saarno hijrada iyo siirada iyo nabiga meeshu ka bilowno imaam maalik in ku soo gabeeray wuxuu yiri la yasluhu aakhiru hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha ummadan aakhirkeeda ku hagaagi u maayo illa awwalkeedii wixii uu ku hagaagay ma ogi marka daawud way inoo qoran tahay awwalkii muxuu ku hagaagay intaan is wareysano aakhirkii ayaa nahay aan raacno si aan u hagaagno haddii aan dhahan awalkii waxay ku hagaageen ma rabno annaga wax kala keenayna ma hagaagayno dhiblan ku jireena markii ilaahay dhibaatada inaga bixiyo